mar kale iyo kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maalin hore waxaa jirtay mar maartay tala si guud ah idinkugu soo bandhignay idiinna soo weydiinay taasoo ku qotantay macnaha falceline kala gedisan casharadeen hore ka dhashay marka taladaas macnaha waxay ahayd in macnaha sida casharada aan ku wadno oo systemkan hadda ah luqadda Greek Englishka iyo Soomaaliga inaan sida wax ku sii wadno iyo inaan macnaha ka joojino qaybta Englishka oo aan Soomaali Greek labada kaliya aan ku soo koobno marka aragtiyo fara badan oo kala gedisan baan soo gaaray inta kadib wax aan sameynay in bal aragtiyaha aan kala xulno oo aan kala meerno meeshii had maar dadku u codbataan inaan anaguna halkaas aan u jahaysano oo majority aan raacno marka wax way aragtay runtii badneed kadib waxay iskugu soo biishootay in dadka badankiisa ay doorteen in Englishka Soomaali iyo Greek intaba aan la kala reebin oo systemkeena hore aan wax ku sii wadno marka saaxiibayaal marka taasaan qaadanay go'aansanayna marka kadib sideena horeba waxaynu ku sii soconayaan haddii alla idmo haddana waxa noo bilaabanaya gudagalka casharkeena maanta wuxuu quseeyaa ama la xiriiraa waa waxyaabaha ku xeeran xilliyada ama waqtiga ama sabanka ama markii ahaan leedo kala maalin ama hadaa la kulmay bil oo kale ama asbuuc oo kale marka waxa way casharkeena maanta iyo casharada ka dambeeya ilaa intaan ka soo ileynayno waxyaabaha inta ku gadaamana dhammaan ka hadlay doona hadii Rabbi idmo marka maanta laakiin waxaan ku qaadanaa maalmaha iyo asbuuca maalmaha Greek wuxuu u yaqaanaan waa maalmo markii macnaha maalmo wax fara badan waa maalmo dhowr ah waxay noqonaysaa imeris waa maalmo Englishkana waa days asbuucana waa ifdomades bay dhahaan Greek marka waa asbuuciyo hal asbuuc kaliya ma waa asbuuciyo marka Englishna noqonaysaa weeks bay noqonaysaa marka laakiinse waxaan arkaynaa hadda hal maalin waxa Greek lagu dhaho iyo hal asbuuc macnaha asbuuc kaligiis oo marka asbuucu sahayn asbuuciyo fara badan oo hal asbuuc kaliya tilmaamisid iyo markaad rabtid inaad hal maalin sheegtay hal maalin kaliya aad rabtid inaad tilmaantid labadaba haddaan arkaynaa ila dhugta iyo maalmaha ka sii dambeeyay intaba hadda waxaan soo aragnay maalmo ayagoo fara badan oo jamaca hal maalin markaad tilmaamisid waa imera waa hal maalin kaliya ka dhiganta waa day marka asbuuc hal asbuuc kaliya ka hadlaysan waxay noqonaysaa ifdomada waa hal asbuuc kaliya ama asbuuc haddana waxaan gudagalaynaa maalmaha asbuuca anagoo ka bilaabanayna isniinta daftera monday isniin tiriti tuesday talaado tetarti wednesday arbaco bimti thursday khamiis braskevi friday jumce saafato saturday sabti kriyaki sunday ahad afriyo tomorrow berri khithes yesterday shalay simera today maantay cashirka koowaad marka koowaad aan soo bilaabay waxaan soo aragnay imera iyo imeris oo ka dhigan maalin iyo maalmo marka imero kale waa maalin soo dhaafay maalin soo socotay lama kala garan laakiin tan waxay ka dhigan tahay waa maantay hadii ay noqoto inaad u baahatay maanta inaad tiraado waxaan oranaysaa simera waa maantay marka inaad si fiican u waafi u fahanteen baa filiya maanta casharkan intaas ku egyahay saaxiibayaal waa anigoo Xaaji Yuusuf oo idin leh guusha marna ka raja dhiganina waxaan kaga tagay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh